haddaad ilaahay diintiisa difaaceeda iyo xaqa difaaciisa ku dhimato diinta iyo islaamnimada iyo tawxiidka iyo sunnada iyo cilmiga sharcigana dadka barto wixii ilaahay ku soo geliyana aad geliso sadaqaadkaas masaajida iyo ceelasha iyo goobaha ummaddu ka faa'iideysanaysa la intifaacsanaya gadaashaada caruurtaadana aad tarbiya wanaagsan tarbiyayso saalixood ka tagto iyagoo wanaagsan ay ku soo duceeyaan afartaba hal mar bay ku kulmi karaan meesha iyada liibaan baa taala marka barwaaqa taala intaasoo camal baa ruuxii u socda boqolaal sana laga yaabaa in la kala dhaxlo waa wax muxuu ahay ilaahay tabaaraka wa tacaala deeq uu bixiyo way adoonkuna loo baahan yahay inuu ku dadaalo waa inaan marka u fikirno adduunka kaliya ma aha maxaad cuntaa ma aha xageed degtaa kaliya ma aha maxaad kasbataa kaliya ma aha maxaad xidhataa kaliya ma aha waa inaad aad uga fikirto waad geeriyoonna shaki kuma jiro inaad si kadaa u dhimatana waa suurtagal inaad si kadaa u dhimato waa suurtagal boqolaal baa diyaarad saaran hal mar bay la dhacday mid ku tala gashana ma jiro inuu dhimanayo diyaaradda ku dhimanayo maantadan New Zealand masaajidii muslimiinta ku taalay magaalo ka mid ah la weeraray boqol wax ku dhow baa isugu jirta geeri iyo dhaawac isugu jirta dad muslimiin oo tukanay ismayna lahayn masaajidka markay aadayeen meeshan aad ku dhiman doontaan saas daradeed geeridu waa xaq cid walbana qaabay u dhimatana wuu dhiman waxaad aad uga fikirtaa maxaa ka horeeya maxaa ku yaala maxaase ku socon doona inaynu aad uga fikirno aynu ku darsanno jadwalkeena waa maslaxadeena iyo danteena waa sallu wa sallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك